السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ogtahay in uu dhulkana duubayo sida aaladaha wax duuba siday u duubaan oo kale markaad ilaahay hortiisa istaagtana oo ka marqaati kici doono waa dhulkee waxaad ku fashay xun iyo sanba نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي carradu waxay ka marqaati kici doontaa qof walba bani aadama oo mukallafa wuxuu dusheeda ku sameeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa saxaabada wuxuu ku yiri miyaad garanaysaan waxa laga wado يومئذ تحدث أخبارها maalintaas waxay ka sheekeen warkeeda waxa laga wado ma garanaysaan markaas ay saxaabada dhaheen ayagoo rasuulka ka edab qaadanaya xagna cilmi kororsanaya eebe iyo rasuulkiisa baa garan markaas rasuulka wuxuu ku yiri waxay ka sheekeen doonto waxa weeye inay qirto adoon lab iyo dhadiga dusheeda wuxuu ku sameeyay waxay dhihi doontaa sida iyo sida ayuu igu sameeyay maalinta iyo maalinta meesha iyo meesha carradu akhbaartaasi ay ka warrami doontaa ayuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidoo kale rasuulka wuxuu yiri dhulka iska ilaaliya oo markaa dambaabaysaan dambiga ha u qaadanina wax sahlan maxaa yeelay fa innaha ummukum carradu hooyadiina weeye oo markaad gafaysaan kala xishooda haddaad kala xishoon weysaan ku talagala inay sheegi xun iyo sanba wixii lagu sameeyay dhammaantii carrada hadli fahamkeeda wuu nagu cuslaan lahaa in ilaahay baa yiri aynu u rumayno maahee dadkii hore fahamkeedu wuu ku cuslaan lahaa arrintan aynu anaga u jeedno maanta bal dadkii hore haddii lagu dhihi lahaa ka warram qof Ameerika jooga iyo qof Soomaaliya jooga ayaa sidan aynu iskula hadli kara qofkaasi arinta qariib ay ku ahaan lahayd laakiin anaga maanta wax la yaabo naga cusub maaha sida oo kale carradu wax bay duubi hadii la yiraahdo fahamkeedu naguma cusla laakiin dadkii hore fahamkeedu ku cuslaa in la dhaho dhulka wuuna duubaya laakiin anaga alxamdulillah naguma cusla fahamkeeda haddaba arintan aynu ku hadlayno quraanka si fiican u lafuguray haddaba quraanka aynu jaleecno Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim idha zulzilatil ardu zilzalaha idha zulzilatil ardu idha goorti zulzilatil ardu dhulkii la gariiriyo zilzalaha gariir u cuntama wa akhrajatil ardu carradiina markaa ay soo saarto أثقالها علايس كذي جودها كجري أو ذهب إيو فضة إيو ميتدي وقال الإنسان ضدكي قالذنا أي دهان ما لها محا أغوعا ها هو قرير كان محا أغوعا أو بابي إيي وحي دوشي ذا كنا ولا وحي جوده ذي كجرينا بنانك كيني هذا الكاسو حالها يا كوي قالوا بي أي دهيا لكن مسلمين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون تاسوا وحي إيبا الرحمن كأه يبوهي رسول الله كرون شيغين حدبا مالنتو دولك قرير أعنتما اونا سو سارو وحي قودها كجري أو دهب إيو فضو إيو ميتدي كوي قالوا بين أي دهان maxaa ugu wacan yawmaidin maalinta markay inta dhacdo ayay tuxadithu ka sheekeen oo ay ka warramay carradu akhbaaraha warkeedii bay sheegi xumaan iyo wanaag wixii lagu sameeyay bay sheegi carrada hadlaysa waa mid lala yaabo ma aha mid lala yaabo bi anna rabbaka adiga rabbigaaga oo xaafaray laha ardada أن تتكلم إني هذا شو أذيك إلهي سوما كهدشين عرضنا إلهي أذيك كهدشي أي يدنا كهدشين هذا بقول على يال هل كان إلى فيريا الله عرشه كسر مري
ومد كو جيدا ميل والبا جوجتو قربهينا ملائك با كاساران حبنهاagينا maalinta qiyaame way kugu marqaati furi dhulkana waa sida oo kale haddaba aadanow isxisaabi intaan lagu xisaabin واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون